wiilkan Falastiiniga ayaa baraha bulshada iga soo horbaxay oo cadowga Israa'iiliyiinta ah ay indhaha ka saareen xilli maxaabiista ay isdhaafsanayeen. Wax aad aan ula qiiroodo waxay tahay xanuunka oo dareemayo oo indhihiisa aan laga arki karin, qaab ilin ahaana aan u muuji karin. Asigoo indhaha ay ka saaran tahay, haddana cilmi baaris badan waxay sheegayaan qofka xoog indhaha looga saaro xilli la cadaabayo in uu mar walba arkayo qofka indhaha ka saarayo. Waa dareemi kartiin. Oo xitaa muuqaal argagax leh mar walba uu ka soo horbaxay asigoo indhaha ay ka maqan yihiin. Ileen indhaha wax lagama arko ee maskaxda ayaa wax laga arkaa. Xanuunkaas uu dareemayo xanuun la mid ah ma jiro, oo qofka wuxuu dareemayaa xanuun aan la arki karin iyo wax dadka kale aysan la arki karin. Oo xitaa waxaa laga yaabaa inuu qarwo, waxaa laga yaabaa in sawir joogto ah mar walbo inay hortiisa ay taagnaato. Wax kale aan samayn karna ma lahan. Indhahaas oo aan u ilmeyn karin xanuunka ay dareemayaan kaliya inaan isdareensiino oo aan u duceyno walaalaheen Falastiiniyiinta.